السلام عليكم. magacaygu waxa la Naciimo waxaan maanta ka hadlayaa oo caloosha iga xumeeyay oo ciil u dhintay oo wallahi beema sheegman ooyay nin Soomaaliya oo gabar Soomaaliyada uu la sheekaysanaya mise wax ka dhaxeeya ma maleynaya mise uu darooga siiyay oo intuu keenay meel uu sariir saaray oo ku leeyay tus korkaaga isqaawi oo aan ku arkay taas bahad ahaato laakiin se wuxuu sameeyay wax ka sii daran wuxuu sameeyay Facebook ayuu soo dhaxdhigay marka waxaan rabaa in ogaado ninka Soomaaliga ee taas sameeyay maxaad faa'iido aad ka helaysaa walaalo koow gabar Soomaaliyada inaad waxaas ku samaysid faa'iidada ku soo kordhaysa maxaa waaye labo gabar kulamay dhalan miyaa hooya ku dhashay waa hubataas because ninku mu dhalay hooya ku dhashay naag ba ku dhashay marka inaad ku samaysid qof dumara amba inan yar amba qof xanuunsan inaad waxa ku samaysid aad ba looga fiican yahay qofkaas oo kale ninkaas oo kale hadan yani muxuu faa'iido ka helayaa inuu ina Soomaalida soo qaawiyo oo ku dhaho Facebook-na soo geliyo maxaad faa'iido ka helaysaa walaalo kama hadlayo ani ma dhahayo ragga Soomaalida dhan ma eedeynayo ragga Soomaalida boqol fiican ba ku jira laakiin ragga Soomaalida inta xun ee xumaynaysa waa 5% oo nimanka Soomaalida ah faraxido bal gabadhaad soo qaawisay oo saas u soo gashay maxaad ka helaysaa waxaan rabaa inaan ogaado are you happy maanta gabadha Soomaalida maskiinada ah aad meesha soo dhex dhigtay Facebook aad soo gelisay waxaan jeclahay inaan Facebook ayaan tusoo clipkaas ay sheegay aad baan uga xumaaday ninka waxaan sameynaa insha Allah wuxuu ka heli doonaa meel kale waa ina Soomaaliyeed waa inantaydo kale waa anigoo kale waa hooyadayoo kale bal wuxuu ka faa'iiday ninkaas ya baday wajigiisa day yani wuxuu ka faa'iiday muxuu ka faa'iiday reasonku waxaas u sameeyay gabadha Soomaalida uu ceebeynayo waa maxay manacayb dumarka u qabaa manacayb iyada u qabaa manacayb qabiilkeeda u qabaa mise why just say wanna know why sababta uu sameysay walaalo laakiin waxaad ogaataa inaad hooyo ku dhashay inaad walaalo gabadh kula dhalatay inaad laga yaabaa inaad gabadhna dhashid marka dumarka Soomaalida markii wiilasha Soomaalida ay saas u galaan dumarkii Soomaalida maxay sameynayaan wiilasha Soomaalida ka cararayaan ajnabi raadsanayaan marka saa ka xumaanina